أف يأذن دعاء الدنيا دجال حتى هذول اللي قال يرادو أنا تضبط السنة جراي واجد قرآن كو كلمينا إله إذن كيسا قرآن كو كلمينا إن شاء الله تعالى والله اسكور قبا وحنوجنا هاي نين كمانتا لو ذكر سوري بدأ هاي هو حقا بدنا وضع عدسن وصومالي تعال هدي لك من نمط الصومالي تعال إن هذا ذكرته وأنكم فرحسنا هاي وأنا سود ويننا ودنا مدح وين باشن ما أنت ماشي فديدا أو باش الشيخ خالد بقول كيوا بقول أيه كتاجر سنتاي وهاي كوكو تاجر سنتاي وحقبت كاجا دين تادا ضد هذا الصومالي تعير كاجا وحقبت كيادو قبتي وأهل هالماني كريم مدنا مدح وين آدي أياض ما هتنتهي وأن كاجا ما هذلنا سجارة وحقبت كيادو قبتي هدي لها كذي هاي باش أنت كذب مدن مدح وينه وحرمنا إن أنا كل شقينا أو أنا كود عينه أو أسكاجر بتاعنا نوما سددتك مدح وينه هنجي رسمي هايات هاي سودوا وعيان لنا هاي باش أفكار أنا كوال ضيا الشيخ شريف ما حنقول عن أنا كشيخ أحمد waxaan ku raacay qabyaalad kubaana raacin daliyo gooni ah kubaana raacin waxaan ku raacnay inuu yahay qof muslim ah oo diinta islaamka ku adag oo ku dhaqma waxaan ku raacnay inuu nin Soomaali ah yahay oo dalka iyo dadka difaacaya oo si xaq u difaacaya waxaan ku raacnay inuu san ahayn nin qabyaaladeysta oo qabiil beegsada waxaan ku raacnay inuu san dadka dulmin oo siyahay nin cadaalad ah wajigiisa kama lehine hadaan hurudno iyo hadaan jiifnaba waa madaxweynihii aan sugaynay waxaan dhihi karnaa gacmaha way saaran yihiin intuu maqnaana dad hurdo kala aanu ahayn ama ku jira qaflad haddana af iyo adin duco adduunyo dagaal hatta hadduu la gal yiraahdo anu 7 sano jiray waa dhibaatadii dhacday صدحدي إلى لحدي بشيجون إن مدحوينا الشيخ شريف الشيخ أحمد لوجا تعسيه ممنين إن لا دجالمه أيضا أن ذلك جديه صدور الشل وقبنين وعننكي كوقبتين شريف الشيخ أحمد بأننا معه وسوى قرنا مدة كلا دولتكم الجار كان ننكي كسارنا مدحوينا الشيخ شريف الشيخ أحمد بوها arrinta aad baan ugu xunnahay madaxweyne waa kaaga tacsiinina kuma qabanin midaad xaq u leedahay ma ahayn ummadda Soomaaliyeedna maanta wax weyn baa tartay oo muuqda oo taariikh gali doona waayo Jabuuti baa lagu qabanayay Imbagaati Nairobi baa lagu qabanayay Old Darid baa lagu qabanayay laakiin dalka gudihiisa aad ka suurtagelisay inay doorasho ka dhacdo xaq badan baad ummadda ku leedahay sidiisana wax hadii la qabanayo markii beer miraheeda la goranayo marka hore waa la waraabiyaa waa la abuuraa waa la falaa dabadeed baa midhaha loo tagaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad ku guulaysato inagoo wada nabada oo Soomaaliya nabad tahay mar labaad inaad noqoto baresantaha Soomaaliya ilaahay baan ka rajaynaynaa mudana madaxweyne 100 jeer 1 jeer waxaan leenahay horta soo dhawow إلهي إذنك ودن كان وانا حكمتي إلهي إذنك سان إذن كان إن وات حكومة دونتا وانا كو قرب استاج دونا إن شاء الله تعالى عمنا إهل كايان هاي سياد أدنو قرنيسا أدي إلهي يكونون هاي ويدي والد نسكننا هاي إن شاء الله تعالى وحن لنا مر إلى الله وحن كلنا سودوا marka hore aad u maasantihiin maxay ahaato raali gelinta iyo dareenka wanaagsan ee ahlnimada ah Soomaalinimada ah iyo wanaag tilmaamka aad ugu mahadsantihiin marka labaadna hadda meeshan waa gurigiinniye ku soo dhawaada in la yiraahdo waxba ma dhibayso
laakiin haddana waa gurigiinni ku soo dhawaada idin leenna intaas markii aan ka gudbo baash sheekh Khalid beel wanaag iyo diin iyo dadnimo lagu yaqaan waay marka qariib ma aha inay waxun markay arkaan ay yiraahdaan waxaan ma haboona marka iyadana waa ka soo baxdeen wadadii la filaayay inaad maraysiin waa ku mahadsantihiin marka waxyaabaha dhacdhacaya waa waxyaabaha ka horeeya marka xalka uu soo dhawiya insha Allah tabaaraka wa taala waska dhamaanayaan nabad iyo midnimo iyo ummadda Soomaalida gacmaha is haysata iyo dawladnimadu hana qaada yaan kulligeena wada sugeena insha Allah taas aan ka wada shaqeynayna aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.